kusoo dhow casharkii shanaad unitkiisa labaad. Unitkii koowaad ee casharka ama darsiga shanaad waxaynu kusoo qaadanay toolka lagu magacaabo elliptical marquee tool oo inu shapes circle wareegsan ah iyo isagoo caleema ah marba nooc u shaqeynaya. waxaan kugu barayaa unitkan labaad ee casharka shanaad ee toolka lagu magacaabo elliptical marquee tool in uu wax tirtiri karo. tusaale shay ayaa rabtaa inaad qeyb tirtirto, waad u adeegsan kartaa sababtoo selection ayuu ku sameynayaa. marka hore waxaad soo abuuraysaa maskinka shaygaas aad ku tirtiraysid, kadib ayaad isaga selectionka u adeegsanaysaa. okay, inoo soo dhaweey wax yar, control plus dheh, kadib waxaan sameynaynaa farti ayaan dooranaynaa, farti ayaan raadinaynaa, farti ayaan tagnaa waa tan, click si highlight ku samee, kadib maskin si maskin halkan ka sii farti saa maskin kugu haysato. waxaan tagaynaa elliptical artaas antaas arday sumaartid inta arday ayaan waxaan ka conaynaa arta inta soo laabata ayaan highlight ku sameeynaa inagoo left click isticmaalayna. intaas aan highlight garaynaynaa. inta aan highlight garaynay ayuu isagu tirtiraya. si uu u tirtiro marka waa inaan adeegsano toolka labaad ee la shaqeyn karo, shaqadaas la qaban kara ee lagu magacaabo brush tool. brush tool ayaan click siinaynaa. halkan haddii colorkan sare madow ku yahay, kan hoosena cadaan ku yahay, waxaad awoodaysaa inaad tirtirto selectionkaas meeshaad selection garisay. laakiin colorkan hadduu kaa bedelan yahay ama uu kan sareeyo ma awoodis inaad tirtirto. mar walba waa inuu kaas madow ku sareeyo markaad masking sameynayso. okay, intan aan calaamadin ayaan click siinaynaa, kadib click waxaad ujeedaa hadda inaan tirtirnay intii selection saarnaa ayaynu tirtirnay. taasi waa shaqo uu qabto oo magaranaysa selectionka ayuu qeyb ka yahay. marka control D dhe intaas ayaynu ku qabanay horta. haye asagii marka click aan siino oo toolka lagu magacaabay elliptical magaranaysa marquee tool wuxuu leeyahay qeybo kala duwan. halkan labada qeybood oo geesaha laba action ayay u kala shaqeeyaan kala duwan. labadan laba action isku dhow ay u shaqeeyaan. labadan waxay u shaqeeyaan minus iyo plus ayay isku yihiin. oo kan hadda pluskiisa hadda pluska adeegsado, markan pluskiisa u dhigay minus haddaan keeno selectionka aan sameeyay ayuu tirtirayaa, dhinac ka soo yareyn karaa. haddaan halkan ka qabto ujeeda dhinacan ayuu ka soo cunaya. haye aan weynaysiiyo intaan ka cuno, haye aan kasii weynaysiiyo intaan ka cuno, aan sii weynaysiiyo intaan ka cuno. ujeeda suu u galay. marka pluska haddaan ku noqdo shaqadii laga soo tirtiro dhan ayuu ii qabanaya. haye waxaan oo dhan isugu kaydaray, marka isagu wuxuu awood u leeyahay inuu wax kordhiyo. soo u fiirso falaarta waxay leedahay plus ayaa la socota. cursor-ka waxaa la socda pluskaas waa ku dar. tan kale kan ku xiga haddaan click si iconka ku xiga waa minus fiiriya, minus ayuu wataa. haye kan kale u fiirso waa equal. isagu waxaan oo dhan buu yareynaya, waxaan dhan meesha la dhigay oo dhan wuu yareynayaa. gebigooda wax yar kusoo dhigay hal mar ayuu wax yar ka dhigay intuu isku daro. haye kan ku xigana isagu wuxuu leeyahay shaqadiisa gooniga wuxuu sawirayaa circle sidiisii u sawiraya, waxba laga bedeli karin. oo kuwan kale ay shaqo kasii qaban karaan, kan kusii dari karo, kanina ka dhimi karo. haye ujeeda soo maaha. marka isaga wax ku sameynayso waa inaa khasab waxaa kugu ah inaad magaranaysaa aad isticmaasho magaranaysaa layer aad u sameyso. isticmaalkiisa wuxuu kaga xiran yahay layer inaad u sameyso. haddii kale shayga aad marka highlight ku ah ayuu ku dul sameynayaa, taasina khalad bay kugu noqonaysaa. marka afartiisa icon sidaas ayay u shaqeeyaan. sidoo kale waxaynu soo baranay magaranaysaa signaladan soo baranay oo waxaynu ku sameynay calaamadahan jidkan halkan yalaynu ku sameynay. rectangle-kiisa waynu soo baranay. kadib waxaynu u gudbi doonaa laser tool iyo magaranaysaa sidoo kale quick selection tool oo isaguna toolal kala wata iyo kan oo toolal kala wata iyagana practical gareyn doonaa insha Allah taala. kadibna waxaynu baran doonaa sida sawirada loo soo geliyo insha Allah taala. markii toolasha aan dhamayno sida sawirada looga shaqeeyo ayaynu ku bilaabi doonaa. casharkan shanaad wuxuu ugu dambeeyaa casharadii aan ugu talagalay in magaranaysaa bisha u horeysa ay ardaydu qaataan. waxaa soo socda in ardayda laga qaado imtixaamaad oo su'aalo la soo weydiiyo. su'aalahaas ku saabsan casharadii ay soo qaateen. marka ardaydu casharkan ha qaateen
ha dhamaystaan kadibna ha isu diyaariyaan inay itixaamka galaan oo insha Allah tacaala ay darajooyin fiican qof walba uu helo si casharada hore ugu sii socdaan oo in u sii wadna koorsooyinka insha Allah tacaala. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.